kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida midiga fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimco ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah senator cabdi qaydiid wiilka rooble la yiraahdo dhibka uu geysto reer hilowle looma qaban karo ama beesha habargedir ninkaasi waxaa iibsaday madaxweyne farmaajo senator cabdi qaydiid cawaale oo ehel hoose la ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka deeriyay dhaqanka iyo waxqabadka ra-iisul wasaare rooble hadalka senator qaydiid ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah hogaanka beesha hawiye ay la kulmeen ra-iisul wasaare rooble kuwaasi oo kala kulmay rooble fajac iyo yaab islamarkaasina dacwo ahaan ugu tagay cabdi qaydiid ra-iisul wasaare rooble ayaa u sheegay beelaha hawiye in uu shaqaale u yahay madaxweyne farmaajo islamarkaasina uu samayn karin wax uusan farmaajo raalli ka ahaynin waxa uu odayaasha dhaqanka u sheegay in ay taageeraan madaxweyne farmaajo kuna shaqeeyaan awaamiirtiisa odayaasha ayaa mar qura fadhiga ka kacay islamarkaasna la yaabay hadalka rooble ma aha keliya in odayaasha uu sheegay in ay la saftaan farmaajo balse waxa uu ugu goodiyey in tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu tuhmo in ay la safan yihiin mucaaradka oo uu ku sheegay in ay yihiin qaran dumis aan lagu aamini karin jiritaanka qarannimada ummadda soomaaliyeed cabdi qaydiid oo dhankiisa la kulmay ra-iisul wasaare rooble ayaa ku gacan seeray fakarka ah in beesha sacad ay taageerto farmaajo kuna taageerto waxa uu ku sheegay dulmiga farmaajo ra-iisul wasaare rooble ayaa ku yidhi cabdi qaydiid adeer farmaajo waxa aan ku heshiinay in aan keeno taageerada beesha sacad gaar ahaan reer hilowle marka farmaajo dib loo soo doortana aniga ayaa dib ii soo magacaabaya in aan ahaado ra-iisul wasaare rooble cabdi qaydiid ayaa dhankiisa u sheegay ra-iisul wasaare rooble inuu ajaran yahay haddii uu rumaysan yahay in farmaajo dib loo soo dooranayo kadibna isaga dib loogu soo celin doono kursiga ra-iisul wasaarenimada taas waxa uu yidhi waa hurdada ka kac mid baan kuu sheegayaa adeer farmaajo soo noqon maayo adigana waad og tahay soomaalina way og tahay waxa aad waddo anigu qayb ka noqon maayo reer hilowle godob hawiyana iyo mid soomaali uma galayso ninka waalan ee shaarbaha dheerkaa leh 4 sano noogu filan dhibkiisa ayuu yidhi cabdi qaybdiid oo la kulmay qaar ka mid ahay beelaha habargidir ayaa si aan ka leexasho lahayn isaga fogeeyey ra-iisul wasaare rooble isagoo sheegay in dhibka ka yimaado rooble ayn beesha reer hilowle wax shaqo ahay ku lahayn ninkaasina uu iibsan yahay madaxweyne farmaajo wiilkan rooble la yiraahdo dhibka uu geysto reer hilowle looma qaban karo dhaqanka xun ee aan ku soo arkayna ma aha mid aan mas-uuliyadeeda qaadi karno jufa ahaan waana lama huraan in kursi 4 bilood ahi aanan soomaali godob uga galin ayuu yidhi cabdi qaydiid islamarkaasina gebi ahaanba u sheegay beelaha hawiye gaar ahaan beesha habargedir si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare rooble ayaa iminka waxa uu bilaabay in gebi ahaanba amarada madaxweyne farmaajo ee guracan inuu si toosa u dhaqangeliyo dhinaca kale xog xasaasiya gudiyada doorashada oo la howlgeliyay iyo jubbaland iyo puntland oo laga tashtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa howlgeliyey xubnaha gudiyada doorashooyinka iyo kuwa gudiyada xalinta khilaafaadka ee doorashada 2020 iyada oo ay maqan yihiin jubbaland iyo puntland islamarkaasina qayladhaan xooggan ee ka taagan tahay adduunka iyo gudaha kulanka oo ka dhacay hotel saale ee ku yaala gudaha garoonka aadan cadde ayaa rooble oo madasha ka hadlayay ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in maanta wixii ka dambeeya ay si rasmi ah u howlgaleen guddigaasi sidoo kale wuxuu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad oo dhinacyada oo dhan ay u siman yihiin ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhammaan xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal lagu soo xulay aqoontooda iyo in dalka ay u horseedi karaan doorasho daahfuran oo cadaalad ku salaysan kana tarjumaysa horumarka dalka iyo si baqaadida dowladnimadeena iyadoo la ilaalinayo qoondada haweenka ee 30%. ra-iisul wasaare rooble waxa uu yidhi waxaa la idinka soo xushay bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan si aad u hogaamisaan doorashooyinka oo la idinku aaminay mas-uuliyadaasi waxaa la idinkaga fadhiyaa inaad si cadaalad iyo hufnaan leh u hogaamisaan idinkoo ilaalinaya qoondada haweenka 30% ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si kastaba xubnaha gudiyadani oo u badan dhalinyaro ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda musharaxiinta mucaaradka oo shaaciyey in aysan ku kalsoonayn guddigaasi waxaa sidoo kale xubnaha la howlgeliyey ayaa waxaa ka maqan kuwii ay soo magacaabi lahaayeen jubbaland iyo puntland oo aan weli imaan magaalada muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul goboleed gebi ahaanna ay soo wadin jubbaland iyo puntland ayaa soo magacaabay xubnaha gudiyada doorashada ee heer federaal hase yeeshee weli uma soo dirin muqdisho ayaga oo aan ku qanacsanayn qaar ka mid ahi xubnaha ay soo magacaabeen dowladda oo lagu sheegay inay ku jiraan sirdoonka qaranka labadan maamul ayaa sidoo kale magacaabin xubnaha gudiyada doorashada ee heer gobol
si kastaba ha ahaatee farmaajo rooble iyo fahad yaasiin dhag jalaq uma dhigin puntland iyo jubbaland iyo mucaaradka oo intiisa badan qaylinaya islamarkaasina guddiyadii laga cabaadayay iminka si toosa ayay u howlgaleen maxaa la gudboon madaxdii hore ee mucaaradka xog xasaasiya xasan sheekh maxamuud oo usoo hanjabay filla Soomaaliya isla markaasina wacad ku maray in aysan dawladda qaban karin doorasho aan raali lagu ahayn xasan sheekh maxamuud ayaa yiri yayna gaarsiinin ayaa leenahay dalkaani meel talada faraha ka baxdo iyo hadallo kale oo culus ayuu usoo jeediyay filla Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali doonin qaabka dawladda wax u wado ee la doonayo in doorashada lagu aado xasan sheekh maxamuud waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in gudiyada doorashada ee dawlad goboleedyada laga qoray hay-adaha amniga dhexdooda oo lagu soo daray ciidamada lagama yeelayo sida ay rabaan marnaba ma dhacayso sida hadda wax u qabanayaan inay doorasho u dhacdo oo wiilashooda askarta ahi inta dadka u afduubaan oo liis xildhibaano la qortay la keensado ayuu yiri xasan sheekh maxamuud isla markaasina marnaba waxaasi lama aqbali karo waa afduub leesaga jeeda ayuu yiri marnaba cid yeelaysaahi ma jirta waxa uu sheegay in sida hadda wax u socdaan aanu jirin qof raali ku ah isla markaasina doorasho aanay dalkaani uga dhici karin sheekada iminka ay wadaan si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa caro xoogan ka muujiyay qaabka ay dawladda wax u wadaan isla markaasina weli ay ku sii madax adag yihiin ma ahan doorasho waa diidnay iyo kama qaybgalayno doorasho dalkaani kama dhici karto sidaa kuma dhici karto waa idinku tumanayaa iyo saan annaga rabo idinka yeelaynaa iyo meesha waa iska sii joogayaa ma lagaa yeelayo ayuu ku yiri farmaajo hortaajira ayaa waayay madaxweyne lagama yeelayo farmaajo yayna gaarsiinin ayaa leenahay dalkaani meel talada faraha ka baxdo ayuu yiri xasan sheekh maxamuud isla markaasina si toos ah ayuu fariin ugu diray filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo maadaama asiga uu dalka madaxweyne ka yahay ugu dambeyntii xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhawaan muqdisho ay ka dhici doonaan shirar siyaasadeed oo loogu tashanayo xaaladda dalka isla markaasina wixii maslaxadda dalka iyo dawladnimada loo arko lagu dhaqaaqi doono maalin cad ayuu yiri cid diidi kartaa ma jirto warar ayaa sheegaya in filla Soomaaliya ay shirarka siyaasadeed diidan tahay isla markaasina xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in maalin cad la qaban doono shirarka isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya ay marnaba diidi karin mar haddii madaxweynihii u dambeeyay ee xasan sheekh maxamuud sida u soo hanjabay maxaa laga filan karaa mucaaradka kale isla markaasina xaaladda ayaa ku xun filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa yiri qaabkay iminka wax u wadaan filla Soomaaliya marnaba dhici mayso cid aqbalaysaa ma jirto ayay filla Soomaaliya maanta la walwalsan tahay dhinaca kale soo dhaweyntii maanta guuleed ku yimid Muqdisho iyo shaki weyn oo abuuray isla markaasina magaalada Muqdisho ayaa iminka siyaasiyiintii ku soo qulqulayaan waxa garoonka diyaaradaha Muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay musharax madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore Galmudug wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Faqi oo kamid ahaa mas'uuliyiinta soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri sida tan Soomaaliya waxay gashay ashhurul filla Soomaaliya iyadoo aadaankii doorashada oo bilaa munaarad ahi oo ku dul yeerayo fillada xilli weli uu ka taagan yahay muran weyn hanaanka doorashada dalka si kastaba ha ahaatee mudane Guuleed waxaa la aaminsan yahay in uu yahay musharax miisaan culus u leh siyaasadda oo imaanshihiisu wax weyn ay saaxadda siyaasadda ku soo kordhin doonto isla markaasina maalmaha soo socdo la filayaa in musharaxiin waaweyn ay dalka soo galaan dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo gaaray magaalada Beledweyne wafdi oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka degay garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne iyadoo si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyay wafdiga ayaa waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne kuwaas oo garoonka ugu hortagay wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa hordhac u ah wafdi oo hogaaminayo madaxweynaha cusub ee Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ku wajahan magaalada Beledweyne toddobaadka soo socdo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa kulamo la qaadan doono maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada kala duwan si kastaba ha ahaatee Dabageed iyo Guudlaawe ayaa waxaa sugaya in gobolka Hiiraan ay halkaasi heshiis dhex dhigaan isla markaasina gobolka Hiiraan intiisa badan ayaanan raali ka ahayn qaabkii wax u dhacay doorashadii ka dhacday maamulka Hirshabelle